السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحب الجنة كان منير مرسكو حران صاحبي على سود هذا ولكن منير أحبابي وحرجينا إن أنا وتقطان الحمد لله وإلهي ما هدي صديعة عافمات قطان الناس يقول عافمات قوا إلهي عافماتك يفرح حدا يدقنها شاع قلبي إلهي نوزياديو وحرجينا يا مركا إن إلهي سبحانه وتعالى دعاءنا أقبله ما أنتم حنروا إنك هذا موضوع مهم ولو أن صدق بركة مقنع يوتيوب كيجا laakiin maanta waxaan rabaa inaan soo dhigo ama aan ka soo hadlo mowduuc ama su'aal la isoo weydiiyey su'aashaas oo aniga xataa aan u arkay inay muhiim tahay inaan u sii gudbiyo asxaabteeda walow ahbaabteeda qof kamid ah ama asxaabta channelka ku xiran ay isoo weydiiyeen su'aashu waxay leedahay quraanku wuu igu adag yahay heesahana waan xifdisanahay ee maxaan sameeyaa quraanku wuu igu adag yahay heesaha waan xifdisanahay ee maxaan sameeyaa waa su'aal muhiim ah qofkaas waxaan rajeynayaa inuu yahay qof aad ugu dhiban heesaha dhageysigooda quraankana uu aad ugu adag yahay waana wax laga xal laga raadin way tahay oo dadka marka muhiimka la weydiyo ama culimada ama dadka ka agdhow walow hadda aan cilmi badan lahayn laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah inaan si fiican ugu jawaabo waan soo barbaaray walow aan isleeyahay waa ka jawaabi kartaa su'aasha haddana su'aashan jawaabteedu waan soo baaray waa soo raadiyay qaabka ugu fiican ee ugu fudud ee markaas walaalkaas ahbaabta kamid ah ee asxaabteeda channelka Munir Mercy ku xiran waxaan isku dayayaa inaan si fiican ugu jawaabo ka jaahil bixiyo idinkiina waxa laga yaabaa qaarkiin videogan hadduu idin soo gaaro ama aad daawataan inaad isaga baahan tihiin jawaabta su'aashaas walaalkeena soo weydiiyay oo laga yaabo in badan oo idin kamid ah inay aad ugu dhiban yihiin dhageysiga heesaha quraankana aysan ku adag yahay inay mar walba muraajacayaan ama dhageystaan ama akhriyaan marka waa muhiim marka qofka markii uu dhibaato ay haysato in dadka cilmigeeda leh aqoonteeda leh oo isleeyahay talow ama jawaab fiican ama ay ka jaahil bixiyaan oo ka daaweeyaan dhibaatadaas ku haysato inuu qofka su'aal weydiiyo aad muhiim u tahay way fiican tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadiisa wuxuu ku leeyahay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun dadka aqoonta u saaxiibka ah weydiiya hadii aydan ogeen wax badan aan ka ogeen sida ogtihiin qofku markuu xanuunsado wuxuu aadaa dhakhtar asoo raadinayo markaas cudurka haya daawadiisa asoo ka raadinayo walow ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu wax daaweeyo laakiin ilaahay idinkiisa uu ku daaweynaya laakiin dhakhtarkaas uu weydiinaya waxba loo soo sheegaya daawooyin la soo siinaa talooyin la soo siinaa kadib talooyinkii markuu qaato ilaahay baa daawo ugu daraayo qofkii uu ku caafimaadaya taasoo kale culimada iyo macallimiinta iyo mashaayikhdeena inaan su'aalaha diiniga ah ee markaas anaga nagu adag inaan weydiino way fiican tahay si markaas jawaab fiican iyo markaas jawaabta ay siiyaan aan ugu daawoono ugu hanuuno markaas dhibaatadeena ay xal ugu noqoto haddii aan u soo laabto quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun dhikrigan anaga soo dejinay macnaha in ilaahay subxaanahu quraanka waa dhikri ilaahay sidoo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad wuxuu ku leeyahay wa innahu latanzilu rabbil alamin quraankan waa wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo dejiyay rabbiga caalamiinta ayaa soo dejiyay marka quraanka waa dhikri ilaahay waa kalaamki ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku soo dejiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa quraanka ama waxa ugu wanaagsan ee la barto ee la daraaseeyo qofkii barto xifdiyo ku tadabburo oo ku amal falana qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala shafaac ayuu ugu dhigayaa oo ku badbaadinaya hadhow qofkaas marka quraankii uu xifdiyay uu bartay oo ku amal falay oo ku khushuucay ku tadabburay ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala shafaac ugu dhigayaa quraanka wuxuu ahaa wal quraan nabi alayhi salaam wuxuu yiri wal quraan hujjatun laka aw alayka hadii aad barato oo ku amal fasho oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad ku raali geliso mar walba akhriso ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadhow shafaac ayuu kaga dhigay quraankii ayaa ku shafaac qaada ilaahay hortiisa ayuu wuxuu leeyahay ilaahayow adoonkan uu akhrin jiray oo amal fili jiray ee u shafaac qaad markaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku shafaac qaadaya quraanka marka waa ilaahay kalaamkiisa waxa ugu wanaagsan oo la saaxiibo waxa ugu wanaagsan oo la akhriyo waa waxa ugu wanaagsan oo la weheshado waa waxa ugu wanaagsan oo lagu amal falo ama lagu tadabburo waa waxa ugu wanaagsan mar walba jeebka lagu wato ama la akhriyo mar walba saaxiib laga dhigto marka qofkana wuxuu ka helayaa marka dhow deganaan iyo xasilid qofka quraanka akhrinayn ilaahay arsaaqis waasacay uu dhigayaa marka su'aasha hadii aan u soo laabto ahayd quraanka waa igu adag yahay ee maxaan sameeyaa quraanka waa igu adag yahay heesaha waa xifdisanahay yarkan ama qofkan kolay wiili gabar wuxuu yahay kole gabar waaye
waxay leedahay quraanka waa igu adag yahay heesana waa xifdisanahay macnaha waxaan u fahmay quraanka heesa badan aan xifdisanahay heesta markay ama qalab heestaas waa qaada ama waa dhageystaa aad u dhageystaa ama waxaan u fahmay in yani heesi ay xifdisan tahay laakiin quraankii xifdigiisa iyo barashadiisa iyo dhageysigiisa uu ku adag yahay oo yani mar walba ay adag tahay in waqti badan ay geliso quraanka halkii ay waqti geliso badana saan u fahmay dhageysiga heesaha iyo markaas inay mar walba ku luqeyso xataa laga yaabo iyadoo heesii dhageysanayeen inay qaadayso markay xaafadda joogto markay hoosh hayso marka waxaan insha Allah u sheegi doonaa dhowr waxyaabood oo haddii ay sameyso ama qof walba oo markaas quraanka raba inuu dhageysigiisa iyo xifdigiisa bilaabo heesahana uu iska joojiyo u sheegayaa ama dhammaan aan u sheegayaa axbaabteeda ama asxaabta ku xiran channelka Munir Mercy qaabka qofka uu isaga fogeynayo ama isaga joojinayo dhageysiga heesaha marka hore heesaha dhageysigooda waa inaad go'aansataa aadna ilaahay adoo raali gelinayo subxaanahu wa tacaala aad dhahdaa ilaahu raali gelinta dartiisa heesaha u dhaafay ilaahu iga mudooway oo marka aad go'aan ka qaadataa marka koowaad marka labaad waa inaad ku mashquushaa quraanka kariimka barasha ha ahaato akhrin ha ahaato dhageysi ha ahaato ku khushuucid ahaato waxyaabahaas dhan aad quraanka oo ku mashquulayo waa inaad taas sameysaa yani mar walba ku mashquul quraanka kariimka waxa nooc walba ha ahaato haddii xataa xifdigiisa iyo wixiisa ku adag yahay mar walba quraanka inaad dhageysato isku day markaa howl hayso markaa seexan rabto dhageyso markaad kaliya tahay waxba haynin dhageyso mar walba quraanka isku mashquuli midda labaad waay midka saddexaad oo ku fududeynaya inaad heesaha dhageysigooda iska joojiso ama iska fogeyso wuxuu noqonayaa isku mashquuli waxbarashada cilmiga isku mashquuli maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ugu horeysay ee quraankan soo dejinayay oo nabi maxamed calayhi salaam lagu soo dejinayay weliba nabi maxamed isagoo ummi ah waxba qorin waxna akhrin aayadii ugu horeysay soo degtay quraanka waxay ahayd iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنتاس آيات أها آياته وهري النبي محمد عليه الصلاة والسلام كسود دقاء إله سبحانه وتعالى حق سكي إماده ووحي مركز جبريل عليه السلام وسود الجيو آيات مركو عنك قادنينا علمك وحبرشده وحأخرين تقفك إنه يعني كود ذاله أو قفك مؤمن كلا رو ولي مؤمن قفك مركو يهاي إنه أنت سكود ذاله مركز هدي أسكو مشغول oo waxbarashadii wax akhrintii qoraalkii waxaas dad isku mashquuliso oo waqtiyadaadii firaaqada ahaa aad geliso waxbarasho iyo wax akhrin iyo wax cilmi waxaa marka adkaanaysa inaad marka heesaha iyo mar walba qalbigaaga soo dhacayna dhageysatid ama inaad ku mashquusho heesihii marka way kaa soo fogeynaysaa heesaha dhageysigooda iyo ku mashquulkooda iyo mar walba inaad yacni qaado haddii aad wax akhrinta iyo waxbarashada aad isku mashquuliso naftaada ku mashquuliso kaasna waa midka saddexaad oo aad isaga fogeyn karto dhageysiga heesaha ama isaga joojin karto midka afaraad oo qofka uu yani isaga joojin karo ama uga soo fogaan karo heesaha iyo dhageysigooda iyo qaadistoodaba waa in qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa uu ku mashquulo ama uu badiyo kathratu dikrillah ilaahay xuskiisa ood badiso ayay macnaha markaas waxaa kaa fogeynaysaa inaad hadhow marka dhageysato heesihii ama aad ku mashquusho ama aad waqti badan siiso mar walbo aad ilaahay macnaha fursad hayso ama aad shaqo yar oo fudud ah ku jirto afka laga qabanaynin haddii aad isku mashquuliso ilaahay dikrigiisa ama masaajidka joogto ama xaafadaada aad joogtid oo gabaraad tahay haddii aad isku mashquuliso ilaahay xuskiisa marka macnaha waxay noqonaysaa in wixii kale aad ku mashquuli lahayd aad ka soo fogaatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa xuskiisa sheegiisa aad ku mashquusho markaasna heesihii wixii aad ka raadin jirtay oo dadka badan ay ka raadiyaan oo ahaa in ay markaas macnaha deganaan iyo wax saas oo kale ka raadiyaan waana beene ayuu markaa qofka ka mashquulayaa wuxuu yani degnaantii wixii uu ka helayaa quraanka dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xuskiisa quraanka uu weyn yahay in badan aayadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alladhiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub معناها قرآنك ذكرك إلهي قرآنك كجرة لكن حسك إلهي جود أهان تصبيحي تحميدي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أذكاراتك أصلا قرآنك أقوي هاي أذكار الصباح أذكار المساء كجيران يعني لا حول ولا قوة إلا بالله استغفرتي أستغفر الله صلي النبي وحياباس أديات يعني بدسو وركا قلبك وكود دقيا هاسيه دقيسي هذا وكا مشغولة سا وكسف وغانيسا كاسنا ومتك أفراد oo aad ku joojin kartaa ama aad isaga ilaalin karto heesaha dhageysigooda iyo qaadistooda midka shanaad ee ugu dambeeya
ee aad isaga joojin karto dhegeysiga heesaha iyo weliba ku luqeyntooda ama qaadistooda waa inaad dareentaa sababta aad koonkan u joogto. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray sababta uu koonkan ku keenay waxay ahayd cibaado. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiisa wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun, jinniga iyo insiga ma abuurin ilaa inay aniga icaabudaan mooye. marka haddii aad dareento sababtii koonkan lagu keenay oo ah cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaa markaa aad iska ilooweysaa heesaha oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka aheen waa mazaamiiru shaytaan la dhaho ama sawtu shaytaan, yacni waxa xaraam ah diinta islaamka ogoleen, wax cibaadaha ma noqonaya, dembi iyo waxbaa ka dhaxlaysaa. marka haddii aad og tahay in cibaado lagu abuuray, kuma mashquulaysid waxyaabahaas shaydaanka kuu qurxinaya ee heesaha iyo macnaha markaas munkarkaas. marka cibaado iyo waxbaa lagu abuuray, waxaas leedahay war sababta lagu abuuray dareen horta ogow. waxa lagu abuuray cibaado, laguma abuurin inaad heesaha dhegeysato, inaad qaadqaado, inaad dheesho, laguma abuurin. marka taasaa marka waxay ku keenaysaa hadhow markaad dareento in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray cibaadadiisa inaadan heesaha dhegeysanin ama heesaha dhegeysigooda iska dhaafto ama ka fogaato ama iska joojiso. marka insha Allah muuqaalkayga halkaanaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. fadlan like saara muuqaalka. soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.